waxaan idinkaga soo waramayaa Yosooman oo gacanta dawladda si buuxda u soo gashay kadib dagaalo badan oo halkaasi ka dhacay loogana adkaaday ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Yosooman oo meel muhiim ah isla markaana Al-Shabaab ay ku gumaadi jireen dadka shacabka ah iyo kuwa musaafurka ah ayaa waxa kala wareegay wiilasha soo majeestayaasha ah ee ciidanka xoogga dalka, dadka deegaanka iyo macwiisleyda. xildhibaan Cabdimaalig oo maalmahan ku sugnaa furmaha hore ay ku sugan yihiin ciidamada ayaa soo kormeeray goobihii ay ciidamadu ay kala wareegeen nabadiidka, isagoona ciidanka ku amaanay geesinimada iyo sida ay qarankooda ugu adeegayaan, una mahad celisay dadka deegaanka sida ay u soo dhaweeyeen ciidanka iyo macwiisleyda oo aan marnaba la xaqiri karin doorkooda oo ay kaga qayb qaadanayaan dib u xoreynta cadawga Al-Shabaab ee laga saarayo deegaanada hoos yimaada degmada Bulaburde. Cabdifataax Xasan Afrax, gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in Al-Shabaab laga sifeeyay Hiiraan meesha jiraana looga daba tagi doono. waa alla mahadiis waxaan u maleynayaa maantay waxaan joognaa meelihii ugu dambeeyay ee gobolka Hiiraan barigiisa argagixisadii laga saaray kuwii gumaaday ummadda Soomaaliyeed. deegaanadii ugu dambeeyay ayaa gacanta dawladda soo galaya ilaa haddana inta aan ka warqabno meel ay ka joogaan ma laha. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in loo gudbo gobolada Shabeellada Dhexe iyo galbeedka Hiiraan, howlgalku halkaas u gudbo. inta kale hadda waa xor alxamdulillah, meel ay ku jiraan ma laha, waana ka sifeyn. taas mahad Ilaahay waaye, waana waxa aan ku mahadinayno Ilaahay, وانا سي سocونaysa insha Allah taala deegaan kasta ay joogaana kama harayno, meel kasta ay tagaan ugu daba taginaa dawladda. Maxamed Shiine oo kamid ah maamulka degmada askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku bogaaday in shacabku uu fadhigu ka kaco si cadawga loo daba jaro. waxa Ilaahay maantiisa horta inaan maanta libin taaganahay, libin muuqato oo Soomaaliya oo dhan ay ku tabataysan karto, balse ka dhalinyar ahaan ka mas'uuliyad ahaan bulshada waxaan u sheegaynaa qaybaheeda kala duwan, kuwa ku hoos jira iyo kuwa hoos u guuxo, in farmidaysan laga wada noqdo oo kii xataa hoos u guuxo la dhaho alla ilaahay ninkan maanta nabad ma rabe calow wadaay hoos u hadla. dhammaan dadweynaha sharafta leh qaasatan kuwa ku nool gobolka Hiiraan way ku mahadsan yihiin. xilliyada adag waqtiga adag ay u soo tul qaateen, Ilaahay baa mahad leh. maanta waxaan taaganahay libin muuqato alxamdulillah, waa Ilaahay baa ku mahadsan. dhalinyarada gobolka Hiiraan u dhalatay waxaan si qaas ahaaneed ugu baraarujinayaa, waa taqaaniin gobolkiina dadka ku nool iyo degmooyinkiina tuulooyinkiina xataa kuwa geeleyda way yaqaanaan dadkooda iyo dadka wax u dhibayo. dadka wax idin dhibayo waa taqaanaan farkooniyo ku fiiqa, sida degmada Bulburto kale ku tabataysada oo qof aan la aqoonatu shax meel ka cabi maago farta la iskugu fiiqayo. wabillahi tawfiiq. Soomaaliya waa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan la dagaalamayna baryahan qawaariijtii soo bahaysatay oo dhiigga muslimka iyo maalkaba banaysatay. marka Ilaahay mahadiis waa bariga Hiiraan waa laga soo xoreeyay, waqooyiga iyo galbeedka iyo koonfurtana oo dhaqaaqay doona haddii Ilaahay yiraahdo. waana mahadsantiin Soomaaliya toosoo isku tiirsaday hadbakiina taagdaran ee taageera weligiina. Sadaam Cabdi Iido oo kamid ah dhalinyarada ku nool degmada Bulaburde kuna sugnaa furunta dagaalka ee Yosooman, soona gaarsiiyay ciidanka 10 neef oo ari iyo geel oo u soo wakiishay Mustafa Cabdi Iido ayaa dhalinyarada ugu baaqay in ciidanka la soo garab istaago. maanta waxaan joognaa Yosooman, waxaan u gurmanay ciidankii deegaanka, talaskii xoogga dalka qaybtada 12aad guutada 5aad ururka 41aad iyo 52aad ciidankii naftooda u hore deegaanka. waxaan guddoonsiinay xoolo, waxaan u geynay 10 neef, waxa loo geeyay geel. Mustafa Cabdi Iido maanta xitaa 10 neef guddoonsiiyay ciidankaas xoogga iyo dhalinyarada deegaanka macwiisleyda qaybooda kala duwan waqti ay bixiyaan. waxaan rajaynayaa inta dhammaan la dhameystiri doono. howlgalka waa socoyaa, laga soo qayb qaato dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, dadka deegaanka degmada joogo oo ganacsatada waa isliideen, waa in sida reer beledun u gurmadeen maanta u soo gurmadaan. dadka deegaanka oo kacay, gabdhaha, ganacsatada banaanka markii laga soo baxan waa ogeen waxay tuuran. ciidanka hadaba istaagaano, ha garab istaagaano, xoolaha ka soo daba qaadaan, timirta ka soo daba dhiibaan, buskudka ka soo daba dhiibaan. Askariya Cali Raage, warbaahinta qaranka Yosooman.